nin oday ah oo caaqil ah ayaa muddo xanuunsanaa kadibna maalintii dambe ayaa wuxuu dareemay inay geeridiisii soo dhawaatay. dabadeedna wuxuu u yeeray wiil yar oo uu dhalay wuxuuna ku yidhi, wiilkaygiiyow, waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid ah inaan geeriyoodo. waxaan kaa doonayaa ama kaa rabaa geeridaas haddii ay ii timaado inaad ku samirto, dulqaadna yeelato. tan kale waxaan kaa codsanayaa marka la dhaqo ama la imayro oo karfantale ay ku duubi rabo inaad ii geliso lugaha mid ka mid ah sigsaantayda, kuwaasoo aan kabaha ku xiran jiray. maalmo yar kadib ninkii odayga ahaa uu dhintay ama wuu geeriyooday. dabadeedna markii meydkiisii la dhaqay oo la karfani rabo ayuu wiilkii yaraa soo xasuustay dardaarankii aabihii, wuxuuna la soo orday sigsaantii. ninkii meydka dhaqayay ayuuna ku yidhi, lugaha u geli inta aadan karfanta ku xirin. ninkii meydka dhaqayay ayaa wuxuu ugu jawaabay, wiilkaygiiyow, arrintaani lama ogola. qofka meydka waxaa loo xirayaa oo keliya karfantiisa sida ay qabto shareecada islaamka. kadibna wiilkii ayaa ku yidhi, adeer, aabbahay ayaa igala dardaarmay inaan sidaan u sameeyo ee u xir sharaabadda, waan ku baryayaaye. ninkii meydka dhaqayay ayaa ku yidhi, arrintan shareecada islaamka ma waafaqsana ee haddaad rabto soo weydii culimmada. wiilkii yaraa ayaa u tegey nin sheekh ah oo caalim ah, wuxuuna weydiiyey in sharaabadda loo xiri karo qof meyd ah kadibna sidaa lagu duugi karo. sheekhii wuxuu u sheegay, qofka meydka ah waxaa loo xirayaa oo keliya karfanta goocad ee meydka lagu duubo, dharkiisa kale oo dhan wax raacaya oo loo xirayo ma jiraan. wiilkii oo yaaban ayaa waxaa u yimid adeerkii oo la dhashay aabbihii, wuxuuna u dhiibay waraaqad. kadibna wuxuu ku yidhi, warqadan waxaa ii dhiibay aabbaha, wuxuuna iga codsaday in aan ku siiyo kadib markii uu geeriyoodo. wiilkii warqadii ayuu furay, waxayna u qorneyd sidan: wiilkaygiiyow, waad aragtaa waxaan hanti ka dhintay oo dhan, maanta waxay kaa diidan yihiin inaan hal sigsaan oo keliya ka qaato. waxaa la ii ogol yahay oo keliya karfantaas cad. adigana maalin ayay kuugu imaanaysaa booska aan hadda joogo. sidaa darteed adduunyadu yaysan kula tegin. waxaad maanta haysato beri kuma raacayaan. hantida aan kaaga tegay u kharash garee ama u isticmaal sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka yahay. ka bixi xaq lagugu leeyahay sida sakada iyo sadaqada. wiilkii yaraa wuu garowsaday hadalka qiimaha badan ee uu aabbihii uga tegey. dulucda qisadani ayaa waxay tahay, ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu ku siiyo maal, ha ku bixin meel aan waxba kaa soo raacin, yacnii meel aanad waxba ka faa'iideen. ee sadaqayso sakana iska bixi. maalkaaga ha ku difaaco aakhiro.